بسم الله الرحمن الرحيم inaan dib kuugu hiloobo waxba iga hortaagan barnaamijkeena maanta oo kamid ah taxanihii kala guur maahe waa kala gurasho waxaynu maanta ku qaadaa dhigi doonaa barnaamij ay sumadiisu tahay inaan dib kuugu hiloobo waxba iga hortaagan waxa in badan dhagaha dadka reer Soomaaliland lagu soo celceliyaa ereyada aan salka lahayn ee oranaya in Soomaaliya uga dhowdahay reer Somaliland saddexda kale ee Soomaalida Kenya, Soomaalida Ethiopia iyo Soomaalida Djibouti waa weer aan sal lahayn ayna ku goobeen sidoo kale saddexda Soomaaliyeed aynu soo sheegnay oo xuquuqdooda iyo jiritaankooda lagu duudsiyo hase yeeshee ku baraaruga marka dib ay uga timaado Soomaaliya sida tarxilidii qalbi dhagax oo ku suntan maanka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia barnaamijkeena waxaynu aad ugu xusi doonaa gundhigna uga dhigaynaa dhacdadii bishii January kowdeedii ee guuga 2024 oo arrimo badan oo isku dadnaa ama isa saarnaa kala socday dad iyo dawlado la moodi jiray inay isweheshanayaanna soo bandhigtay si isku dabaal joogtaynayeen 10 years in your opinion anything goes in politics. You know, Mr. Tafera, states might expand, states might collapse, the states might break apart. That's how politics sees it. Of course, there is a reason. There are factors, internal, external factors for that. Let's see, in the case of India, Pakistan has been out. So West and East Pakistan, and then the East Pakistanis wanted their own state, so Bangladesh was born in 1975. So there are so many instances. Sweden and Norway. Norway broke apart from Sweden. So now what we have is that Somaliland, which was a former British colony, which had experimented for a few days to join with Italian Mogadishu, Somalia, is saying no more. So although de jure they are not legally sovereign nation, de facto, just like Eritrea, the two countries were born in the same vicinity or in time perspective. One is recognized, legally and de facto and de jure, because Ethiopia at the time even volunteered to send application by Prime Minister Meles. The other is countries are not daring to break the ice. To recognize is the first, as you know, as we say. To break the ice and recognize Somaliland, and the rest would follow. Because the American Republican now would be, they have expressed interest that America, Norway, Denmark, UK, they are ready to recognize Somaliland. Whether it's going to be Ethiopia or not, time will tell in the coming few weeks. So the point is, Somaliland is gone, from my point of view. It will never to re-emerge with Somalia. bisha January ayaa bafar u ah xilligeedka miilaadiga gu kasta oo kamida xilligeedka ayaa ku bilaabma bisha January sidoo kale ayay bisha January kowdeedu si kala duwan ay qof kasta bulsho kasta iyo dal kasta u leedahay tilmaan u gaar ah si kale hadii loo gudbiyo weedhaasi waxaynu oran karnaa maalintaasi ayaa qof kasta bulsho kasta iyo dal kasta si ugu suntan dadka reer Somaliland ayaa bisha January kowdeeda siiba guga 2024 ay si gaar ah ugu suntan tahay imikana ay leedahay weligeedna yeelan doonta muuqaal iyo magac mudnaantiisa wata oo xus iyo xusuusba ku soo galbin doona adigu waxaan ma ayaad faalisayo kemeeyda hayay balsi behnir marka soo xil dadku hor jiru faaliya ma faaliyo ma ku dhacay waa ra'yi ahaan January 2024 January kowdeeda isbedel weyn baa soo baxay dadkuna way kala nabadgeli ma ku dhacay baasheenii nabadgelyada saaseen lagu soo socon doontaa aan ra'yigaasan qabaa muddo ku dhow 30 ay bulshada reer Somaliland gabsi lama filaana u dhacay ay saxayeen gafkaasi ayaa ku bilowday niyad wanaag iyo dan guud oo shanta Soomaaliyeed ugu qaleen hashoodii maandeeq ay horarka ka soo xirageliyeen waxa bulshada reer Somaliland maankooga ka baxayn oo had iyo jeer soo maaxanaya halgankaasi loo soo maray marxalado kala duwan habab kala duwanna loogu hawlgalay waxa xusuus reeb u ah maalmihii ay codkooda ku diideen aftidii dastuurka maalmihii ay barteen tuulada walaweyn iyo waayaheedii guracnaa ee loo adeegsaday doorashadii ku shubashada ahayd maalmihii ay bakaylaha qalanayeen kana soomeen cunto magaalo maalmihii inqilaabkii dareenkiisa lahaa
ee baraarujiyey in badan oo reer Somaliland ahayd oo mahsanaa maalmihii ay wasiiradii xilka hayeen iska casileen si ay ummadooda reer Somaliland ula dareen noqdaan hoggaanna ugu noqdaan dareen muujinta qayaxan maalmihii Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal ilaa uu naxariistay xilka ra'iisul wasaaraha qabtay ee uu golihii wasiirada u qaybiyay siday u kala yeelan lahaayeen reer Soomaaliya iyo reer Somaliland si dareenka jira loo sii ambaqaado maalmihii Ilaahay ha u naxariistay Ismaaciil Neero oo ahaa mudanihii ugu horeeyay ee si bareedah loogu toogtay dib u soo celinta maandeeqda marin habooday maalmihii Jibriil Aamin ilaa uu naxariistay loo beegsaday inuu ka soo jeeday deegaanka dalka Somaliland maalmihii toogashada dhaca xoolaha iyo xarigu tiro beeleen muujinta dareenka taban ee ku aadanayd gefkaas dhacay iyo sidii loogu hawlgalay soo guriye celinta maandeeq lagalama bakhalin in maansooyin lagu sugo markii ay golaha baarlamaanka ee Somaliland uu isku raacay in xamar wax la wadaago ayay Abwaan Xuseen oo Faarax Dubbad oo kamid ahaa xisbiga NUF taayarintaasi aad ula xumaatay dareenkiisa taban ee warintaasi ka qaatay ayaanu maanso sooyaalka u gasha bulshada reer Somaliland si ay wax ugu qaataan ugu reebay dhaxal ahaan waxaanu yidhi aadan Cabdulle Cusmaan oo sida sooyaalku sugayo qayb laxaad ka qaatay hirgelinta gefkaasi ay reer Somaliland iyo samida iyo u danaynta shanta Soomaaliyeed ku galeen aadan Cabdulle Cusmaan dantiisa ayuu ka raacay waana la adeegsaday gugii 1903 dalka Mareykanka waxa lagu toogtay madaxweynihii Mareykanka ee John F Kennedy maansooyinkii reer Somaliland maansoyahankii reer Somaliland ayaa laga hayaa in aadaacade oo daabyada lala doonay reer Somaliland ee uu hormoodka ka noqday fulinteeda ay taariikhda ku galiyeen maanso ay ku muujinayeen waxa kala gudboon oo gundhigeedu ahaa wadkii Kennedy dilay aadan buu kaale leeyahay markale ayuu Abwaan Qaasim gugii 1967 markii aadaacade iyo Cabdirasaaq Xaaji Xuseen doorashadii laga badiyay uu lahaa nacabkii Ilaah naga kaxee naaqiska ahaaye nasiib baanu leenahay haddaan aadan soo noqone nuuxnuuxsigii ina catoosh nugul ka soo doogiye nataaqadii nagaadhiyo lugtii lanaga naafeeyey wuxuu nacalo qabihiina baday waanu ka noolnahay mar kale ayaa Abwaan Cali Sugle Dun Carbeed ayaa bulshada reer Somaliland u sheegay in hashii maandeeq soo darnawday kuna dhiirigeliyay inay hawlgalayaan soo gulcelinteeda markuu lahaa عيوهن قضي هربي لا عيوهن قضي لا عبي بحوهن قضي هدانا ويوهن قضي لا عيوهن قضي هربي لا عيوهن قضي لا عبي بحوهن قضي هدانا ويوهن قضي sidoo kale ayaana Abwaan Cabdilaahi Suldaan Timacade ayaa isagoo sugaya in Soomaaliya iyo Somaliland kala ahaayeen laba dal iyo dawladood oo dan ka durugsan labadoodu ay wax ka dhaxaysiisay ayaa lahaa يا واتدنتينو دجيو كدوكي دود كالتنا وعلو مدينة وادعا وديدو مالين دي دبكو غيغيان الزمار جيزيدني مالين دي دبكو غيغي الزمار جيزيدني الزمار جيزيدني لمن جيتن دجيك ديا لمن جيتن دجيك دين دريقو ذاك اللي دعوة دولة دميس دلكن غوان جوجنو دولي استعماركيو داركي بكسيبه كرل تاقت كزارة يندو تدانواي
ددان وهين دولة زوج شيلين دنتنا لبديد دبوبان مغليني درم بانكن قبنايو دبزيري برلمانكيو دكدي عمر باغله بربرة دادكو هاغادو دوني يعني كويقن دغيري برلمانكاي لبدا كلادايو يا دويما لهاني يا لاي mar kale waa kii cabdiqays ka waramayay hadalkii maxamed xaaji ibraahim cigaal ee ahaa umul baa la afarta bixiyaaye aynu maandeeq 6 bilood aanaheeda inagu dhanno ismaamulkeenana aynu hagaajisano qaalinkii aad soo raray dib baan uga qisooda qoobkayga meeshaan dhigaan qamac ku eega qalbigaygu hadalkii cigaal wuu qardugaya 6 bilood qormada oo dhisnaan uga qushuuca lagu qoonsay weedha markii waasa loo qiray waxaa halganka markii dambe ee sida taariikhda iyo sooyaalka sugaya la gaadhay go'aankii qaraadha gugii 1974 oo tilmaantiisa gaarka ah aynu si faahfaahsan uga warrami doono buug dhawaan soo bixi doona insha raxmaan gugaas 1974 ayaa go'aan midaysan lagu gaadhay inaan qoray caadadii mooye aan si kale maandeeq lagu soo guriyo celin karin hormoodkii jabhaddii afraad ciiltire horyaal iyo kuwo kale oo badan ayaa noqday bidhaan lagu doogsado oo deegaanka iyo dadka reer Somaliland kaalmo lama ilaawana u noqday halganka muddada dheer soo socday waxa soo afxiray soona afmeeray oo dambiilihii lagu shiday jabhaddii afraad sii huriyay halgamaagii SNM oo guushii la soo hoyday bishii May 18keedii 1991 waxaanay hormoodkii SNM muujiyeen inaanu hangalkaas ahayn mid qofeed ama reereed hase yeeshee waxay golo dhexe iyo fulineedba ula diyaar ahaayeen kana dhabeeyeen in dhammaan reer Somaliland ay xubno iyo talaba ku yeeshaan si loo wada dhamo caanaha maandeeq wada lahaanshaha ay hogaankii iyo xubnihii SNM go'aansadeen ayaa ka xildhibaanka ahi maanta uu ku yahay xildhibaan ka wasiirka ahi uu ku yahay wasiir ka madaxda ka ah xisbi ama urur uu ku yahay madax sidoo kale ayay dadkuna ku wada nool yihiin nabad iyo caano muddo 30 sano ee maandeeq ku jirtay meehanow waxa bedelay 30 gu oo barwaaqo nabad iyo kor laga dareemay magaalo kasta degmo kasta iyo tuulo kasta oo ku taala dalka Somaliland waxaa muuq wanaagsan iyo muuqaal cudoon yeeshay dhammaan magaalooyinkii dalka sida Hargeysa, Lascaanood, Burco, Boorama iyo wixii lamida dhibta iyo rafaadka loo soo maray ee midhaha dareyga laga guranayo waa waxa ka yeersiiyay Abwaan Xasan Sheekh Muumin Ilaahu naxariiste masiibo lagu mahadi markuu u soo joogay arday da'yar oo waxbarasho u taga deegaan aanu garanayn iyo dad aanay isku dhaqan ahayn markuu mar labaad u soo joogay ardaygaasi oo waxbarasho hoose ilaa jaamacadii ardaaga gurigiisa ay ku yaalaan dalkiisa iyo dadkiisiina dhex jooga waxay ahaayeen dadka reer Somaliland dad wax u bilaaban yihiin oo ka warhaya taariikhdoodii 60kii ka hor saadarteed ayay awooyaasho tallaabadii dimuqraadiyadeed ee ay ku caanamaaleen boorka ka tumeen saadarteed ayaa shirar bilaabmay bishii Febraayo 1991 kuna soo gaboobay bishii May ee gugii 1991 lagu go'aansaday sidii mar kale dhidibada loogu taagi lahaa maandeeq balaynu marti uga noqon Mujaahid Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale oo loo yaqaan Boobe oo dhidibu taagnida maandeeq inooga warama shirarkii iyo go'aankii kama dambaysta ahaa ee reer Somaliland oo isku dhan ay isla gaadheen يمير بلاس قوين مراد الله مبوستين إن أنا محبي وكالقع الميلان ماشي فرحتي مقابيني ماشي فرحتي مقابيني بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بشي فبراير هرانتيدii 1991 ayaa dhammaan gobolada waqooyi lagu xoreeyay nidaamkii Maxamed Siyaad Barre dadku xiriiq xooti ay ka yimaadeen dalka ay yimaadeen dal burbursan oo aanay adeegyadii bulshada asaasiga ahaa ee wado biyo leyd iyo waxaan kaas lahaa iyo isbitaallo aanay jirin dalku wax la burburiyay oo dayuuradii madaxfil lagu garaacay wax la farataystay ayuu ahaa taasaa diibtii iyo darxumadii dagaalkuna u dheereyd dabeedna go'aamadii ugu horreeyay la qaatay waxa ay nabadayn iyo dib u heshiisiin
dalka lagu soo dabaalo oo aan xabad damba dhicin waana lagu guuleystay isla bisha February bartamaheedii 20keedii dhowr iyo 20keedii waan tagnay magaalada Berbera hudheelka Yaxye meel hoose oo imika Doobi markii ugu dambeysay oo galbeed u jeeda oo aad moodeen underground tahay baa lagu sharay waxa fadhiistay gudidii fulinta SNM oo Cabdiraxmaan Axmed Cali tuur hogaaminayo iyo salaadiintii iyo madax dhaqameedkii beelihii waqooyi markaas Soomaaliland ma jirin waxa la go'aansaday in shir loogu wanqalo walaalaynta beelaha waqooyi lagu qabto magaalada Burco bisha April 27keeda tirada 27ka la iskama qabsan oo maalmihii gobonimada la doondoonayay maalin kamid ah ayay ku beegnayd oo imika xasuusnayn dabadeedna sidii baanu Burco ku tagnay 27kii waxa ma suurtoobin guddi qaban qaabaa la saaray kamid baan ahaa guddida qaban qaabada xogaal baan ahaa dabeedna 5tii bishii May 1991 ayuu shirka walaalinta beelaha waqooyi ka furmay magaalada Burco gelin dambe ayuu furmay salaadii casar kadib barxad weyn oo hoolkii markii dambe golaha dhexe ku shirayay aqallo yaryar oo dunsanaa ayaa daarad weyn oo dhexdooda la fadhiistay dadku wuu isu dhamaa SNM waxba kama maqnayn taliyayaasheedii golaheedii dhexe guddidii fulinta odayaashii salaadiinta ahaa iyo intii ay caga ku qaadanayeen garaado salaadiin madax dhaqameed kale way joogeen marka xafladii furitaanku halkaas ayay ka dhacday bil amaara shir gudoonka waxa fadhiyay Cabdiraxmaan Axmed Cali Xasan Ciise Jaamac iyo Sheekh Ibraahim waxaana maalinta gudoominayay Xasan Ciise Jaamac oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka SNM shirkii saasuu furitaanku ku dhamaaday dabeedna cidii gaarka shirka u lahayd oo ahayd odayaashii iyo cuqaashii iyo salaadiintii iyo garaadadii beelaha waqooyi ayaa shirkoodii galay waxay shirayeen 5tii bishii May ilaa 8tii bishii May 6 qodob ayay soo saareen footage-ka ayaa ku arki doontaan nin aadan Axmed Diire la aadan baradhal leeyahay oo xageeyo waxa gola guurtay ayaa akhriyay 6 qodob waxay ahaayeen koow in waqooyi gaar isu taago oo aan la raacin koonfur qodob koowaad buu ahaa qodobka labaad waxa in lagu dhaqmo shariicada islaamka qodobka saddexaad wuxuu ahaa in si dhaqso ah dawlad waqooyi in si dhaqso ah loo dhiso dawlad waqooyi qodobka afraad wuxuu ahaa in la sugo nabadgelyada waqooyi qodobka shanaad wuxuu ahaa in golayaasha ururka oo loola jeedo ururka SNM iyo dawladda si cadaalad loogu qaybiyo beelaha waqooyi qodobka lixaad ugu dambeeyana wuxuu ahaa in nabadgelyada gobolka Sanaag xil gaar ah la iska saaro guddi gaarana loo saaro 6 qodob ayay gaadheen odayaashii guurtida ay ku gaadheen halkaa waxaynu ka soo dheeganay in dadka reer Soomaaliland oo u dhan ay magaalada Burco isla qaateen soo celintii Mandeeq waxaana sidoo kale halkaa lagu soo gundhigay sidii loogu hana qaadi lahaa kamira dhalinta go'aanka ay dhammaan bulshada reer Soomaaliland ku wada gaadheen inay isleeyihiin waxna wada qabsadaan barnaamijkeennii kala guurkii maahe waa kala gurasho ayaynu qaybtiisii koowaad ee ku aadanayd soo bandhigidda gundhigii soo celinta Mandeeq iyo hanashadii indhaha dawladaha adduunka halkaa ku soo afxidhi doonaa maanta